saacado yar ka hor ayaa maaragtay dawladda Kenya qaybteeda booliska rayidka ee loo yaqaan civil aviationka ayay la soo xiriireen civil aviationka Soomaaliya waxay nagu wargeliyeen in ay notice airman warqad la yidhaah ayaa lagu xiraa airspace-yada waxay noo sheegeen notamkii saarnaa xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo labada haway kala xirnaayeen in ay cancel gareeyeen waxay noo soo direen caddayn buuxda oo arrintaa ku saabsan marka laga bilaabo saacadii noo soo direen falaayada labada wadan waa isu furan yihiin xagga Soomaaliya markii hore waxba kamaysan taagnayn xaggooda oo keliya ayaa maaragtay nidaamku ka jiray oo xanibaadu ka jirtay annagana maadaama aan contracting state oo Kenya aan nahay ama wadan xubinka ah laanta saadaasha hawada dawladda hawada ee jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa waa inaan ixtiraamnaa amarka ka soo baxay wadan kamid ah wadamada ku bahoobay hay-adda marka taas ayaan ixtiraameynay marka iyagii ayaan hadda kansalay marka falaaiska u dhexeeya labada wadan si caadiya ayay kusoo noqdeen hadda laga bilaabana si caadiya ayay u duuli doonaan haddii ilaah yidhaah mudane bal waxaan ku weydiinayaa waxa arrintan culayskeeda ugu badnaa waxay ahayd in dawladda Soomaaliya ay hore u mamnuucday diyaaradihii qaadka ka keeni jiray dalka Kenya falaayadan hadda Kenya ay fasaxday idinku xaggiina kuwii duulimaadka ee diyaaradaha qaadka ma fasaxan yahay taas weli wadahadalkeeda wuu socdaa ilaa iyo hadda nidaamka lagu furay hawada qayb kama aha kaasi laakiin wadahadalka maadaama xiriirkii oo labada wadan u dhexeeyay la soo celiyey wadahadalka sii soconaya ayuu qaadku qayb ka noqonayaa haddana qayb kama aha falaayada la furay marka falaayada passengerka iyo kaargooda caadiga ah oo nolosha bini aadanka la xiriira kuwaas ayaa dib loo soo celiyey oo u kala duuli doona labada wadan sidii caadiga ahayd markii hore waxaan ogeyn Kenya inay iskeed go'aankan u qaadatay oo diyaaradaha Soomaaliya ka tagi jiray ama ka iman jiray Kenya ay iskeed ugu dhawaaqday inay xirto markana sidoo kale ayay ku dhawaaqday inay furtay marka ma waxa jira wada hadal idin dhaxeeyay idinkii Kenya oo keenay in dib ay u furto hawada horta Kenya markii hore go'aanka kaligeed ayay qaadatay haddana waxay u muuqataa markii ay qadarisay xaaladda labada wadan iyo danaha labada wadan ay kala leeyihiin markii ay qadarisay ayay go-aankii dib uga noqotay waa jirtay inay mar hore wada kulmeen xilligii ra-iisul wasaare uu joogay wadanka Djibouti ay halkaa ku kulmeen madaxweynaha Kenya ay ku kulmeen kadibna macnaha wax oo maaragtay arrintaa furitaankii si degdega umuusan dhicin laakiin ilaahay mahadii hadda ayuu dhacay haddana waxaan helnay qoraalkii ay ku kansalaysay dawladda Kenya laga bilaabana wixii dawladaha haddaba dawladda ayaa sii daynay oo galabtii maintenance u aadi lahayd wadanka Kenya marka si caadiya ayay falaadkii kusoo noqday